kulankan oo ka dhacay Muqdisho waxaa wada qaatay xubno ka socday midowga musharixiinta, odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye iyo qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed. Ujeedka kulanka ayaa ahaa in odayaasha iyo haweenka ay muujiyaan inay diidan yihiin in dowladda hadda jirta isla markaana uu hogaaminayo madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday ee Farmaajo in uu samaysto muddo kordhin. Kulanka waxaa fadhiyay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Sidoo kale waxaa joogay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo xubno kale oo markaa midowga musharixiinta ka mid ah. Gabagabadii kulanka waxaa la hadlay saxaafadda qaar ka mid ah odayaashii iyo haweenkii kulanka ka qayb galay waxaana ay yiraahdeen shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay waxa isu yimiday dhaqanka beesha Bahweynta Hawiye iyo siyaasintooda waxayna go'aansadeen doorasho xur ah inay dalka ka dhacdo oo xalaala ku darsimaya doorasho xur iyo xalaal ahay u soo diyaar garoobayaan cidda rabta inay xilkan madaxtinimada qaadato intaas qofka aan rabino cirkee dhulka meel ka baxda la waayay. waxaan kaloo sheegaynaa cid wax ku darsan karta ama baarlamaan ama madaxweyne ma jiro. maya ninkii walba soo ku yimid waa ogyahay doorashadu ku yimid wadadeeda waa inuu qaadaa. hadduu qaadi waayana asagay u taallaa. dadkii maanta dalkan u soo dhibtooday oon hal maalin ka bixinaana ma rabna inaan maanta oo korkayna ku dumo oo dhibaato ka dhacdo. kunsaankaynu wuxuu yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday dadka inuu maaragta ku tunta laga yeeli maayo. waa inuu u hoggaansamo amaamiirta iyo maxaan ku leeyahay baaqyada kala duwan inuu isdhagooliyo maaha. waa inuu ogolaado doorashada ha galiyo hadduu ku guulaysto xaqa uu leeyahay hadduu ku dhaco ayadana ficiisa dhici jiray hadda ka horba waa maaragta ku guul daraystay la iskuma haysto. ma yaqaaniin xilka ay xambaarsiin iyo saldanada ay haayeen horta maba yaqaaniin tootaliminto maba kasaayaan way aflagaa doonaan tuugaatiin dadka dhacdiin tuugnimo waa dhamaatay inta waa laga baxay xagga waa laga baxay gabdhaha waxa idin sheegaa mushaar lacag kale idin siiyo oo mushaarka Farmaajo idin siiyo lacagtii aniga liiga qaado oo canshuurta idin siiya xamar joogu soo rabiya waxa rabaa in xamar la isku noolaado. gabdhaha colaata cilaaminina idinka idin roontahay anagana way noo roontahay. waxa aad sameynaysiin oo maalin xildhibaanada matala ku aflagaadaynaysiin baarlamaanka dhexdiisa oo qabiilada ku sheegaysiin oo tuugada ku sheegaysiin oo maxaa la ka daba qaylinaysiin. Maxamed Yaxya Jino, warbaahinta Nation, Muqdisho.